soo noqod wanaagsan dhamaantiinba waxaad iga sugayseen in aan idin soo gudbiyo xogaha rasmiga ah sida hadda durdur media xaaladda ka dhex taagan iyo nidaamiye waxaan soo ogaanay in nidaamiye wali hadal laga sheegsin lahayd wali in nidaamiye hadal laga sheegsin yani hadal laga sheegsin lahayd markaan ku dhahayo waxaan ka wadaa durdur media dhibaatadii loo geystay in nidaamiye uu ka dambeeyay ay dadka dhan isku raaceen laakiin nidaamiye wali arinka asaga uu ka soo horjeedaa oo sababta uu soo horjeedaa wuxuu leeyahay durdur media dad badan buu dagaal kala dhaxeeyay aniga kuma jiri wax xasaas yeelay si walba la sameeyay durdur media YouTube-keedii waxa loo baahnaa waa la soo celinayaa iyo arrimo saas ah lahaa waa laga sii xuusanayaa sida ay sheegayaan wararka soo baxay oo durdur media YouTube-keedii god dheer buu ku sii dhacayaa waxa la sheegay dad YouTuber waaweyn oo sida YouTuberada iyo waxaas adiga ku mashquulay YouTuber waaweyn ku mashquulay baa la sheegay in durdur media loo dhiibay oo la yiri bal isku day inaad soo celin kartaan waa laga sii xuusanayaa hadaba durdur media laakiin insha Allah waxaan ugu duceynaa in la soo celiyo YouTube-kaas hadaba war kale intuu yaal muxuu yahay durdur media in ay YouTube cusub furan doonto kadib markii kaas laga xusto durdur media in ay YouTube cusub furan doonto YouTube-kaas maxaa lagu qori doonaa ma Xasan Toob mise isla magaciyo durdur media la soo celin doonaa wallahi ma garanay wixii soo baxaan arkaynaa arinta nidaamiye haddaan dib ugu jaleexno waxaa la sheegay in maxkamadihii wixii yar yani degmo iyo wixii la sheegay arintiis in waxba looga qaban lahayd ay u baahan tahay in maxkamad weyn la tago Xasan Toobna waa hari leeyahay oo wuxuu ahaa nin meesha dad badan ku haysto arrimo badan ku kala xalinaya oo waa la khaldan yahay yani nin wuxuu ku shaqaysanaya dhan hadda ma qof baa ogolaanaya in dukaan uu leeyahay la soo galo alaabtii laga jijibiyo la iska baxo waa ma runta la isku sheego Xasan Toob waa la khaldan yahay waqti walba markaan intii soo istaago arintaas aan ka hadlayaa Xasan Toob waa la khaldan yahay waxa la tagi doonaa baa la yiri maxkamad weyn laakiin arintaas maxkamadda dib baa loo dhigi doonaa oo saacadahan soo aadan waxa la shaacin doonaa YouTube-ka durdur media ay leedahay YouTube-ka durdur media ay leedahay saacado kadib la shaacin doonaa halka Xasan Toob uu wali maskaxdiisa yani ay waa qof hadda wax xun loo geystay maskaxdiisa ay wali wax arrimo badan ka guuxayaan nidaamiyaha arintaas u geystay bay dadka leeyihiin nidaamiyeen wuxuu leeyahay weerar badan lagu soo qaaday oo leeyahay adaa wax sameeyay saada sameysay maxaa saas oo gashay nidaamiye ilaa hadda uu cadeyn lahayd arrinka rasmiga ah xogta rasmiga ah ilaa hadda nidaamiye uu cadeyn lahayd sidoo noqoto waan arki doonaa haduu Ilaahay yiraahdo halkan waxaan idinku taaganahay xogaha rasmiga in aan idin soo gudbiyo haduu Ilaahay yiraahdo haddaad nagu cusubtahay subscribe noo saar like share comment wixii cusub soo baxana waqti walba degdeg ayaan idin la soo socodsiin doonaa saad nagu xirantiin anaga jecelnahay kaamiradi Kamal Empire sidaas iyo amaana Allah